baan haystaa labadayda nabiga ciisa oo ku dhashay ayaan ku dhalay midna laygama dhalin soo nabi marka maanta say ku yihiin allah khalq rabbi baa hada gaari ma sha Allah ya kuma kitaabada Sweden gube kitaabada ilaahay waa hadal aan maqlayo ma aragtaa arrinta kala arba leeyahay waxa leeyahay meeshan muslim degana maanta waxa lagu muslim degana oo islaan ma degana oo qabiilkaada wax aad ma joogo magaalada daarad wax la ma joogo oo ma joogaan eerid halkaas aan deganahay miyaa ma magaalada oo dhan oo human ba ahanba waa hooyo Soomaaliyeed sida hordhacaad ku daawateen oo ku sugan wadanka Sweden ama qurbaha waxay ka sheekeynaysaa in 3 wiil ama 2 wiil oo iyadu ay dhashay ay markaasi idna ka dhalin macnaha taa ereyga waxa uu yahay in aysan caruurtan wax aaba ah uusan ka dhalin arintan ayaa waxay noqonaysaa dhinaca kale mid cajiib ah maadaama ay hooyadu sheegtay in nabi ciise sida uu u dhashay oo kale markaasi ay ilmahani u dhashay nabi ciise calayhi salaatu wasalaam markii maryama ay dhalaysay ama uur ahaan ay u qaadaysay sida quraanka lagu sheegay waxa lagu afuufay ruuxda iyadoo sidaasna ay ku qaaday uur dadkii inta badan deegaanka markaasi maryama ay ku sugneedna looga shakiyay in siyaabo kale ay wax u farsameysatay laakiin nabi ciise calayhi salaatu wasalaam ay sidaasi ku dhashay iyadoo xuquuq badan la kulmaysa hadaba hooyadan ayaa waxa ay sheegtay in ay iyadu ku dhashay 2 canug ama 2 wiil oo iyadu dhashay sidii nabi ciise oo kale oo wax bila aaba amal ah markaasi ay ku dhashay arintaasi dad badan ayaa la yaabay iyadoo dhinaca kale su'aal la weydiiyay in kutuba ay gubeen iyo wax aynkaas taasina ay sheegtay in suuqyada iyo wax aynkaas ay ku maqleen iyadoo ay jiraan rag kutuba quraan gubayay marka loo eego dhinaca markaasi wadanka Sweden hadaba waa wax la yaab leh in qof uu yiraahdo waxaan ku dhalay sida nabi ciise oo kale dunida imaka aynu joogno hadaba muuqaalka hadii aad daawatay oo aad aragti marka ay kugu jirto qeybaha hoose in nagula wadaag waa mahadsantiin waa ku mahadsantahay daawashada muuqaaladeena sidoo kale daawada subscribe saaro channelkeena Horseed Funny Media waxa ku soo gaari doona mustaqbalka muuqaalo aad ugu bogto waad ku mahadsantahay